عاو آدي أبرتو هبين كان أغل قلي بيلبلتي عاو صار فرحتهم كفر حصلها jaaliyadda Soomaalida Australia ayaa si diiran caawa halkan ugu soo dhaweeyeen wasiirka beeraha waraabka iyo bay'ada dawlad goboleedka Puntland Ismaaciil Gamaadiid oo kamid ahaa jaaliyadda Australia waxaan aad iyo aad mar labaad idinka mahadcelinayaa qalbigayga mahadna ka soo go'ay sidii aad igu soo dhaweyseen Melbourne oo ah mid aanan ilaawi karin مسؤولين هراء aqoon-yahano haween iyo waliba madaxda jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida Melbourne ayaa ka qayb galay kulankan soo dhaweynta ugu horreynna waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada munaasabadan Faarax Warsame anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada munaasabadan quruxda badan ee aad caawa nagala soo qayb gasheen oo aanu ku soo dhaweynayno wasiirka beeraha deegaanka iyo waraabka mudane Ismaaciil Diiriye Gamaadiid oo maanta marti inoo ah dad badan oo runtii aad u qiimo badan ayaa halkan fadhiya oo rag iyo dumar ba isugu jira magacyadiina ma soo wada koobi karo laakiin dhammaantiinba waan idin salaamaya waxa laga hadlay ahmiyadda ay wasaaradda beeraha u leedahay bulshada beega maanta aan Soomaaliya ama Puntland aan ku dhaqmay waxay ahayd beero ama beego mid haddaadan beeran wad baraysa waxyaalaha aan ku aragnay ama dalka Soomaaliya ka yeelay waxa weeyaan hay'ado kaaran bixinaya oo quudinaya ummadda Soomaaliyeed dadku waxay moodayaan inay wax tarayaan waa hay'ado la dagaalamaya qofkii inuu wax beerto ama shaqaysto Soomaaliya maanta haddaad tagto oo tuuladii aad ka tagto waxaa lagu leeyahay ma kaarbad wadaa imisa kaarbad wadaa ووحيانا أمد اللي جارسية أمد إن أنا بيري ولا غاقم وحن إكسامر قب حلايا والله يا بدونتان بوتلان نبي بيرتي سيجا وربايا وحكبها وحالي بيرتي بالقيمية مركو وخرج كبحه صد كل باوغ صباحيا صنفكي مركو وخرج كبحيو مركو أول شيء واحد وباهي يسوي حلو تريو مركو يبحي بحولي واحد كلا دورية هي وحن ربا وزارة إذا كشغل يسيسو صدق كل ما يبرسك صباحيسا هذا لو حوليه شغاليسي halka waxa ka garanaysa dadkii Soomaaliyeed sida loo gaarsiiyay dibadda inuu ku noolaado wax kale waa hay'adaha aynu doonayno sababka inay noo hayaan wasaaradda beeruhu waa wasaarad aad muhiim u ah waana wasaarad weyn waliba beeraha kaliya ma ahan wasiirku wuxuu mas'uulka ka yahay waa environmentigii oo iyadana muhiimad kale oo gaar ah u siileh mujtamaca shacabkeena Soomaaliyeed hadii ay horumar la gaarsiiyo beeraha inay maaragtay si wanaagsan ay cunto nutrition leh oo fiican ay helayaan wasiirka hambalyadiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo baan anigu u kacay jaanis kale iyo intina ka soo qayb gashado aanu mahadnaqayo jaanis kale halkan oo dhiman ma arko marka wasiir welcome soo dhawow sareele waa joogi jirtay adigu waa taqaan Puntland mar walba waxay u soo jeedaa habsamo u socodka nabadda deganaanshaha maamul wanaaga dalka Soomaaliya hadda xasuutaan 1998 markii Soomaaliya ay burburtay 1991 markii muddo la sugayay waxay isu xilqaantay inay abuurto maamul ka dhisan Puntland kaasoo lagu baadi goobayo dawladdii Soomaaliyeed oo luntay anigu Canberra ka imi wasiirka waxaan ku soo dhaweeyay Garowe haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Melbourne iyo Canberra wasiir soo dhawow gacmo furman ku soo dhaweynayna anigu siyaasad isma soo taageeraan ka hadlo maanta xilkan nagu cusub oo hadda Puntland naga asaasay oo lay magacaabay muddo dhaweyd oo ah gudoomiyaha warshadleyda Puntland inaan wax yar inay ka iftiimiyo fariina aan u faro wasiirka sidii loo taakulayn lahaa ama wax looga qaban lahaa marka hore wasiir Ismaaciil waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaca jaaliyadda Puntland magaca jaaliyadda Jubaland intaba waxa ka fiican ku soo dhawow magaca jaaliyadda ummadda Soomaaliyeed ee dalka Australia
ugu horeyn waxaan halkan uga ducaynaynaa una mahad celinaynaa in dheergaradkii deegaanada Puntland oo muddo lagu qiyaasay 20 sano ka hor hadda gartay in nidaamkii hore oo ahaa centralized government oo xukunka dalka oo dhan in hal meel laga xukumo in ay burbur kale keeni doonto sidaa darteedna Soomaalidii kale u horseeday in nidaamkan maanta lagu dhaqmo ee federalismka in ay iyagu deegaankoodii ka bilaabaan arrintaa way ku mahadsan yihiin odayaashii iyo siyaasiyiintii reer Puntland ee 1998 marka la yiraahdo daaqii iyo waraabkii iyo beerihii intii nolosha bini'aadanka ku wareegsanayd marka waxaan jeclaan lahaa wasiirka horta inaan koob kula dardaarmo bal wasaaradani ahmiyadda ay leedahay maadaama ummadii Soomaaliyeed nambarkeedii badnaa uu dhalinyarada yahay bal in horta la gaarsiiyo dhalinyarada laga dhaadhiciyo war ahmiyadda wasaaradda maaliyadda iyo tan caafimaadka iyo tan gaashaandhigga ma ahane waa daaqii iyo waraabkii iyo beeraha oo ummadda noloshoodu ay ku wada kooban tahay taas horta waa mid aan jeclaan lahaa wasiirka inaan kula dardaarmo waxaan kaloo jeclaan lahaa dhalinyarada in badan baan anu ka warqabaayo marka waxbarashada ay galayaan ama jaamacadaha ay aadayaan way adag tahay inay bartaan wuxuun saameyn ku yeelan kara daaqa iyo waraabka iyo cimilada iyo deegaankaba inta badan maanta waxa la wada baranayaa waa business iyo dhaqaale iyo computer science iyo caafimaad laakiin wasaaraddan uma soo baxaan dhalinyaro fara badan marka waxaan jeclaan lahaa wasiirku inuu isku dayo in dhalinyarada uu ka dhaadhiciyo ama uu raadiyo scholars fara badan beeraha dadku marka uu wax soo saarkiisu uu sareeyo oo wax soo saar fiican ay leeyihiin bay waxay ku la tartami karaan adduunka qaybihiisa kaleeto ama gobolada muxuu ahaa kaleeto ay la tartami karaan taasoo dhulkeen waa dhul dihan waa dhul wax badan lagu beeri karo sida aad u ogtihiin waagii hore waxa la moodi jiray inay region gaariwaaba loo bixiyay waxa la moodi jiray inay tahay meel aan waxba ka bixi karin haddana waxa dareemaysaan in mooskii xataa laga abuurayo babaygii laga abuurayo raashinkii ay nooc la soo saarayo xataa gobol meelo waxaan arkayay baabuuro waaweyn oo istiidyaal oo bataata laga soo rarayo oo wadankeena kamid ah taas marka waxay u baahan tahay in hoos loogu sii daadego dhinacna in la dhiso wax soo saarkii beeraha oo horey loo mariyo dhinaca kaleetana in dhirta la jaraayo la joojiyo sababtoo dhirta xaalufinteedu waxay ka mid tahay damiraada wadankay ka mid tahay dhirta marka la xaalufiyo waa dhibaato weyn ayaa ka imaanaysa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan kulankan ka soo qayb galno annaga dhan ka soo wada qayb galno wasiirka soo dhaweyntiisa inaan wasiirka soo dhaweyno aad iyo aad bay sharaf noogu tahay waxaan leenahay hadal badan aan u bixisho wasiir soo dhawow wasiirku mar haddii ama maamul goboleedka ka yimaado ama dawladda dhexe ka yimaado mar hadduu wasiirkii dawladda ka tirsanaa yahay waa wasiirkii guud ee dawladdii asaga ka wakiila nooc kasta oo ay tahay marka waxaan dhigi karnaa asagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaaga aad noo soo hurtay waan u baahnay runtii facebookana wareeshee wasiir aan ka wareysano xogta dhabtaa taabta aad iyo aad aan ugu baahnayn wasiir marka horeysa noo soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa magaca jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan ka gaar ahaaneedna waxaan kugu soo dhaweynaynaa jaaliyadka mataanada ah Puntland iyo Jubbaland magacooda inta kadib wasiir wadanka kuma cusbid waa wadankaagii nin xasan leh baad tahay waxaanu ka jali ahaana Jubbaland mar walba ugu mahad celinaynaa reer Puntland madaxdooda iyo shacabkooda sida ay mar walba ay Soomaaliyeed macna u garab taagan yihiin si mar walba ay u ilaaliyaan nidaamka lagu heshiiyay dawladnimada ee federaalka laga soo bilaawday 2004 runtii waa mudan yihiin annaguna si gaar ah inoo taabanaysa laga soo bilaabo dhismihii bilowgii Jubbaland ilaa hadda oo doorashada u dambeysay oo runtii dhibaatooyin badan laga soo maray dhanka federaalka ah ay runtii ay yimaadeen caalamsaarka u dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam caalamsaarkiisii mar walba ugu mahad celinaynaa aniga oo ka yimid magaalada Toronto Canada oo hogaaminaya ka ahaa delegatekii gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed min footballka ah oo nimid ciyaarihii qaranka sidoo labada dawladood ee lagu qabanay magaalada Perth haddana caawa waxaan ka qayb galay xaflad ay leedahay Puntland oo wasiirka beeraha Saciid lagu soo dhaweynayo
marka runtii aad baan uga helay aad baan warbixintiisii qiimaha lahayd oo ka bixiyey iyo warbixinta ka haysanay dhinaca beeraha runtii warbixintuna siiyey aad iyo aad bay noo anfacday anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Puntland runtii waan soo dhaweynayaa wasiirka soo dhawow waxaan uga mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu dad aqoon leh oo sida Ismaaciil Dhegweyn oo kale u doortay yaasiin dihaal oo ka mid ah aqoon-yahanada khibradda u leh culumta beeraha ayaa gabagabadii la dardaarmay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waanu soo dhaweynay xaflad baa caawa u qabanay si wanaagsan baan ugu soo dhaweynay shalay waxaan wasiirka qada sharaf u la qaatay aqoon-yahanada xagga beeraha ee Soomaaliya hore u shaqeeyay oo qada gaara u la qaatay oo aqoonta beeraha iyo talooyinka la isdhaafsaday oo shalay bay ahayd caawana halkan ayaa jaaliyada Soomaalida uu kala kulmay wasiirka halkan ayaan ku soo dhaweynay talooyin badan baan siinay ruuxantii waan ku faraxsanahay inuu noo yimaado waxaan diyaar u nahay inaan mar walba wasiirada waddanka inooga yimaado ama dawladda gobolada ka yimaadeen ama federaalka ka yimaadeen inay noo yimaadaan oo waddanka nooga warramaan anaguna aan tala siino oo aan u gudbino wixii khabaaraada iyo aqoon oo halkan aan ka baranay waxaan u jeedinaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedu inay wada shaqeeyaan oo waddanka xasilooni iyo nabadgelyo lagu soo celiyo si jaaliyadaha dibadda jooga ay waddanka ugu soo noqdaan oo waddanka wax uga dhistaan waana wasiirkii ugu horeeyay ee dowlad goboleedka Puntland ee ka taga wadamadan Pacifica sida Australia iyo New Zealand dib ugu soo laabtay dalka Australia isla markaana halkan kula kulmay jaaliyada ballaaran ee Soomaalida gaar ahaan jaaliyada dowlad goboleedka Puntland Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia